Assalaamu calaykum soo dhowaada daawadayaasheeda qiimaha badanow ma ogtahay in qof kasta uu u baahan yahay qaab uu uga hortago guuldarrada laakiin nasiib darro qof kasta inuu ku mashquulsan yahay siduu u guuleysan lahaa ee aanu isweydiinba siduu uga hortagi lahaa inuu guuldarraysto xaqiiqadii guuldarradu waa qayb ka mid ah nolosha waana muhiim inaad barato qaababka looga hortago ha ogolaan cabsida guuldarradu in ay burburiso noloshaada halkan waxaynu ku soo koobayaa 3 qodob oo aad uga hortagi karto guuldarrada qodobka koowaad ha ogolaan dadka kale inay hoos ku dhigaan waxa hubaal ah inaad soo martay noloshaada guuldarrooyin fara badan si kastaba ha ahaatee ha u ogolaan dadka kale in ay ku niyad jabiyaan ama aad tahay qof aan waxba qabsan karin ma jiro qof wada wanaagsan qof walba khalad wuu sameeyaa maxaa yeelay xitaa nabiyullaahi aadam calayhi salaam ayuu khaladku ka dhacay markii ay cuneen geedkii alle ka xarimay ee uu yiri ha cunina saas daraadeed magaceennaba ah insaan haddaba ku dhiirigeli naftaada in aad tahay qof wax qabsan kara guuldarradana ka gudbi kara qodobka labaad iibso buug yar oo xusuus qor ah maalin walba ku qor 3 shay ee aad guul ka gaadhay inay suurtagal maaha in aadan maalin dhan wax faa'iido leh qaban buug yar ku magacow saaxiibka guusha oo maalintii hal mar akhri si aad uga hortagto wadada guuldarrada qodobka saddexaad baro khaladaadkaaga waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad kaga hortagi karto guuldarrada waxaa ka mid ah in aad barato khaladaadkaaga in aadan mar labaad samayn khalad aad hore u samaysay taas macnaheedu maaha in aadan shay mar ku guuldarraysatay aadan mar kale ku guuldarraysanayn laakiin waxay tahay in aad wax ka barato khaladaadkaagii hore ee aad samayn jirtay oo aadan ku sii socon waad ka hortagi kartaa wadada guuldarrada halkaas ayuu ku egyahay mawduucin fadlan haddaad nagu cusubtahay nagu soo biir